markale ayaa dib la isugu soo laabtay quraan furitaan u ahaa fadhiga labaad ee shirweynaha horseed kadib isa soo dhaweyn suugaan iyo kawrcelin su'aalo iyo aragtiyo laga dhiibtay fadhigii hore xeerka ururka horseed ayaa laga warceliyay waxa xigay in shirweynaha ay hor yimaadaan guddi ka kooban xubno 3 oo baarlamaanka Puntland ka soo mid ahaa kuwaasi oo codgeliyay 458 qof ayaa u codeeyay waxaana ka aamusay 2 ruux sidaas ayaana lagu ilaamiyay hirgalka xeerkaasi Abdurrahman Maxamuud Faroole ayaa loo doortay gudoomiyaha koowaad ee ururka horseed shirweynahan urur siyaasadeedka horseed inay ku ansixiyaan gudoonkii gudiga ururka oo maanta halkan lagu ansixiyay gudoonkii hadda loo codeeyay aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa una bogaadinayaa hawsha adag oo ay qabteen howlwadeennada urur siyaasadeedka horseed oo ilaa saaka taagnaa iyo ergada oo nooc walba ku jiro rag waaweyn ku jiro dumar ku jiraan dhalinyaro ku jirto inay u dhabar adeegeen in dhamaystirka processkii ama abraaci aan ku ansixinaynay dhaxo xisbiga aan ku ansixinayno inaad halkaan u dhabar adeegteen oo aad sugteen inaynu dhamaystirno maanta ayay hawli waxa weeye inay ka hormartaa ku xigeenka koowaad kan labaad iyo kan saddexaad ayaa iyana qaab gacantaaga lagu doortay waxaan rabaa inaan idinkuna mahadnaqo inaad ii garataan inaan noqdo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka horseed waan idinka mahadcelinayaa shaqadii cuslayd oo aad maanta soo qabateen waxaana idin leeyahay weli faanoole fari kama qodna dadweynaha ergada noogu ansixisay codkooda oo noogu deeqday iyagoo la higsanayo mustaqbal dheer oo la rabo dalka in loo noqdo howlwadeen iyo wixii dana ah oo dalku u baahan yahay ururku u baahan yahay xisbi la gaarsiiyo ina aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa waxaan leenahay waana sharafteen allah idin sharfo waxaan aad idinka mahadcelinaynaa waqtiga iyo juhdiga inuu gelinay muddadii 2 maalmood ahayd inuu ka shaqaynaynay urur siyaasadeedka horseed inuu gaarnayna guulo la taaban karo oo miro dhal ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinka mahadcelinaynaa xilka aad ii garateen oo ii doorateen ah in gudoomiye ku-xigeenka saddexaad urur siyaasadeedka horseed insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu hawl fiican qaban doono idinkuna aad nagu garab siin doontaan golaha dhexe ayaa sidoo kale qaab gacantaaga loogu codeeyay Isa Maxamed Isa wararka SBC Garowe